بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaa maanta xisbiga sinaanta ammaanka midnimo u ololeynta madaxdiisa sare ee iskugu yimid xarunta dhexe ee xisbiga Samo si ay taageero ka muujiyaan qaabka ay u socoto doorashada taasoo oo laga bilaabo 20 7 ee lagu doortay dhammaan guddiyadii sharciga ah ee dowladda federaalka jamhuuriyadda Soomaaliya ee baarlamaanka 11aad sida darteed madaxda xisbiga Samo shir jaraa'id ay iskugu yimaadeen ayaa waxay doorbideen in ay tahaniyad taageer ah u diraan ummadda Soomaaliyeed waxaana u akhrin doona shir jaraa'idkaas wixii ka soo baxay kulanka gudoomiyaha xisbiga sinaanta ammaanka midnimo u ololeynta mudane Ogasawe Sheekh Xuseen Honero falyatafadal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta sida la socotaan laga bilaabo taariikhda markay ahayd 26 27 iyo 28 waxaa socday doorasho oo ummadda Soomaaliyeed u oomanaa inay dhacdo ayay dhacday. sida aad la socotaan waxaa marka hore 26 la doortay guddoonkii aqalka sare sidoo kale 27 waxaa la doortay guddoomiyaha aqalka hoose 27-kana waxaa la doortay ku-xigeenadiisa. sida darteed waxaanu leenahay hambalyo 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 ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. waa wax ay filayeen dhib iyo qahar iyo waqti dhumis kadib waxaanu helnay baarlamaan oo mifila shacabka Soomaaliyeed. sida darteed waxaanu leenahay hambalyo ummadda Soomaaliyeed meel kastaba ay joogaan gudaha iyo dibadda. waa arrin lagu farxo. howshaas waxaana runtii mira dalkiisa iska lahaa shacabka Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan xubnaha baarlamaanka Soomaaliyeed oo la soo xulay ayay maxaa la yiraahdaa sabab u ahaa. sida darteed waxaanu leenahay mar labaad hambalyo 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 shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. hambalyo xubnaha baarlamaanka, hambalyo raggii la doortay oo meeshaas ay ilaahay nasiibkooda ka dhigay iyagana waxaan leenahay hambalyo annagoonaan kala qaadin. sidoo kale tartamayaasha oo ilaahay nasiibka ka hiiliya dadka kale waxaan leenahay hala garab istaago raggii la doortay in la garab istaago. hooshii lagu wado haddii ilaahay yiraahdo hooshii lagu wado midnimo, soomaalinimo, qarannimo, wadaninimo insha Allah la soo hulo ugu dambeyntii madaxweynihii noo fadhiisan lahaa villa Soomaaliya. midaas ayaan ka rajaynaynaa. waxaanu ka rajaynaynaa haddaanu nahay xisbiga Samo waxaan rajaynaynaa arrintaas sida hufan haddii ay u dhacday doorashada midda madaxweynahana sidoo kale in sidaas ay u dhacdo iyadoo hufan iyadoo sharaf badan ayaanu u aragnay anagoo shaashada kala soconay in ay dhacday doorasho aad iyo aad iyo aad u fiican oo hufan ayay dhacday. waxaan markaa ugu ammaanaynaa raggii qabanqaabadiisii lahaa sidoo kale raggii maxaa la yiraahdaa meesha joogeen oo dhinac kastaba ka taageeraya ayaanu leenahay hambalyeynaynaa. waxaan u hambalyeynaynaa ciidamada qalabka sida oo meeshaaseeto
amnigiisa sugeen si nabadgelyaha hooshii ku dhammaatay waxay mudan yihiin in loo hambaliyo xildhibaanada gaar ahaan waa u hambalyaynaynaa sababta maalintii habeenkii ugu horeysay oo 27 guddoomiyaha la dooranayay waxaan ogeen sidii subaxdii ay u tageen ilaa maqribkii afur la'aan ayaa meeshii ku joogeen suhur casho la'aana meeshii ku joogeen